السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الميل كستا شوفتان واحد لنا كلنا تبرواقات داود المانت برامج كنا وياها دلانك وحن كقاد دونا سامينتو موبلك كل إنمها يا أرضي دبا داود هذا موبلك وكميدا لده وقعد ستان دونك سي آدنا لوغا استعماله الدونك أوردن بس وكوبدين هيدال كسوما وطن كسومالي دا عروتنا جارهان دلانكا waata iminkii haatan aan ku soo qaadanayna macalin iyo arday iyo waalid iyo dhibaatada soo kala dhexmartay intay ardaydu isticmaalayaan mobilka war caruurteedu talo ma yihiin iskuulkii tagin kaalay hooyo hooyo mobilkii ma soo ibsateen adna ma sita hooyo hooyo waxaan ii sheegayaa haddaba iskuulkii maydaan tagayn wadaadeene taga hooyo dhaqso hore u yaaca inamadaydi toomeeye inankaygi iyo inantaydii aabba balkaalaya السلام عليكم. calaykum asalaam aaba yoran الحمد لله تمام. wala fiican ya aabe معنا. يورنا. aryaaba yoran khayr wey aabe ولا في عين. aabba waxaan ku idhi waxaan labadiin ku waaninayaa aabbo iskuuladii iyo imika meelaha wax lagu dhigto bareefadada dhigataan iyo iskuulada waxa ka soo ifbaxay wax xun oo la telefoon la yiraahdo horta ayaa magaalada hoos imika kharibay waxa telefoon la yiraahdo wuxuu wataa waa aad horta adigu ku shaqeynaysa wax kasto ama qof kala hadashid ama aad memory gashato haddaad aabba quraan baan idinku waaninaa inaad idinku shubataan hadda telefoon horta ha qaadanina mee gebigiisaba koodhi telefoon idinkuma arki karo marka aad weynaataan aad meel heer sare gaadhaan ayuun baad telefoon qaadanaysaan markaana maxaad u qaadanaysaan wixii danihiina ahun imaka intaad deertihiin telefoon laydinkuma arki karo telefoonna magaciisa dhiga iska dhiga waay yaabo waad maadsanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع ردي مين ما أنتوا يا بسامين. بربي دافتي ما أنت واحد ذكر مايو. بس صوت دايرية هاي اللودينة صوت دايرية. السلام عليكم معلم. عليكم السلام. أرتا رول بعض محل ركته. ما عندي وحنا بيجي سنة ما بنكون هلا ما. ما بلا. وانا فاهم انا قصة ما بقول كاله بسود وهذا حاجة زي ستيك. إيه ما. ستيك سنوب. سود وهذا بلادنا. حاجة شلي حاجات مغنى اللي بدينا ولا عليه. ما أنا معلم لما أنا هوسبادي وأنت كده هاوس بادي. هاوس بادي قاسنا محوها. لما أنا حفلت شلون فيها وياب. أي رادنا حاجات مغنى. ما واحد بيجي سنة أنا فنان كي على مول كين قد يجي سنة. نية نسل الدنيا ترى ذي لما ركت أضو. هاي مدحوينا رضا هو إذا يا بحي ويا الصاع. هاي ما. حلوها معلم سك كالك صاحب صاحب ودان كله تلين لها وحن كورن لها صاحب اسكت تليفون ياها صبادي صاحب والله بالله تلا يا قنت وافتي وحن كورن لها اسكت بروح inantaada yare weligeed intay jirtayba madow iyo waxaa loo jeedin ku jirtay tuutusa saddex iyo toban kala talaabsanay danaha garaac baan ku oranay اسكت دابا انك أنا دنا قرع رضا. ما يلقى جدار أضو والد كودا هاي من. أي روح ما يجي شيء. سلا بدأ أصلا قنينا. تينا كلها حلنا ما بيلها قادرنا ما بيلها قادة هذا شقي سنة. ما بيلقى حلو تلاقي قف شقي سنة أما قف جامعي واحد كوشرا أما قف بايع مشترى أنت أسو خليات. خساري سنوات قرنا سام. إن هالسكود دوانينا. تلو أبويان أبينا كلنا هاي هذا قادين سنقات. لكن واحد شعله إن القادتان. odayga abiina ducaalana maalin walba waan saaragnaaye eedhe dadaala si raggaasoo kala ha noqonina ay dhaadeer waxaa bay yidhaahdeen house party talo house party-gaasi muxuu ah waa yaab waanu eegi doonaa beri tolan waxay la yimaadaan war kuwii carruur ahaa talo maxaa ku dhacay maanta way daaheen iskuulkii talo maana iman carruurtaydi iskuul baas baaban ku dhibay carruurtii aan ka fadhiisiyey hooyo ma fiicantiin هاويو. hooyo waxaad noo dhegeysan sabaa maxay وما بيهويو. oo maxay socotaa heesta markaa
وفنانك عانكي هو مرسل oo moobil la'aan ma hooyo ku haysa show هو بابلان بهيس haa adna hooyo maad ku soo shubay waxaan ku shubtay hooyo may waan kusoo shubtee Ha. waan ilaa maanta hooyo bood fiicantiina iska dhageysta moobilkiino ka warrama maanta meeshii maxaad ku soo aragteen hooyo maxaa كان سوير يا مولكي وقبصه sidee هو مولكي وقبصه de illa waxba ma waxbaad garan weydeen ما هو haddaa muxuu leeyahay halka tagtay bigu dhawaan ku fanaanka caankii mursal baan dhageysanay markaas oo igu oo moobilkaaga ugu haystay mawlkii igu haysto hooyo bismillaahi raxmaani raxiim waaba la yaab macallin moobilka ku qabsanay ardaydii haddaba anaa kuu raacay hooye moobilkana kuumu iibinay ilaa anaa kuu soo iibiye ma ku tiri ama hooyada ay soo iibsay hooyadii ay siibsan ku anaa ku soo adna hooy maxay ku saari hooyo anigan wuxuu igu saariyay xafladan xalay tagay wuxuu yiri xaflad lama tagi karo naya la wila dhale maay haddaba hooy anaa nii geynaya anaa tegaya hadduu joog joog bilaabana dee dambe wayd uga tegi anaa mari hooy kun ardayda rool wal baan ka soo horeynayniyo maxay ahayd labadii fiicnaana malaha way baabiyeen badde alla uu sahal dhalinyarada maanta waaban ka yaabanahayba السلام عليكم معك calaykum assalaam saaka ma idinkaa usoo horreeyey hay ma kiibaan raacday sidaadi un baa tahay may subtaa aabba ma la hashay muxuu ku soo yidhi waase السلام عليكم السلام عليكم معلم calaykum assalaam السلام عليكم naama salaam baa naga dhex war waxay meesha heesaa ku dhex dhegeysanaysaa waryaha bakti macallin dhegeyso bakti moobilka carruurta maxaad ku saari horta carruurta dhaqan xumada show adaa u horseegayba anuu arseeday la dhaqanka waxay ku xun yihiin waa la iswaaniyaa ama waa la isku sheegaa maxaad ku saariday maadaama maxaad ku saariday soo waxaan ku seeriyay akhlaaq xumada iskuulka la yimaadeen haye macashar mobil xiisadii lagu jiro mobil bay shideen waa la iska dhegeysanaa madaxaasa moobilka hadda dhegeystaan maxaa dhibaatay jirta ma aanay iska dhegeysan karin qof dhibaatada jirta waxa weeyaan inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun waalidkiiba carruurtiiba dhaqanka ka dilaya wax ma kuu sheegnaa hooyo annagoo ardayda waxaa noogu keentay inaanu akhlaaqda kuu barno oo aanu kuu hagaajino noogumaad keenin inaan heesa iyo wax galaaska nagaga dhex dhegeystaan soo ma ay fahmin carruurta hadday inantaa u ogolaatay inay baadhiyadii meelaha kasoo jaasto aduu ogolaan weyday inay diintii islaamka iyo wax walba baran waayeen may mid ma kuu sheegaa maalin haddaba waad khaldan tahay midaan kuu sheegaa carruurteedu diintana waa yaqaanaan oo haddaanay diinta aqoonta mabay joogeenba dalkan maadaama ay kumaba dhex jireenba dalkan islaamka carruurteeda diinta waa yaqaanaan laakiin waxaan kuu sheegayaa moobilkan u soo ibi dee maxaa kaa saran adiga moobilka way qof kasta u haysta moobil su-aal khaliyaatan ku weydiinaya maye su-aal khaliyaatan ku weydiinaya iskuulka ma waxaad u keentay inay moobil dhegeystaan mise inay wax bartaan maayo horta waxbarasho waan u keenay iskuulka bees haddaba de waxbarasho ku sheegi waan u keenay laakiin moobilkooda kama qaadi waxbarasho ku sheeg baad u keentay hadda miyaa saasa hadda haddaba mid wey aan kuu sheego carruurtaa dhaqanka ka baabiine kaxayso imika may macan haddaba wax kuu sheega allaale culimada u tago culimada moobilkan dhibaato uu ku leeyahay carruurta ma jire culimada u tago baan korala waa kuwa isku qayr bay yihiin eeg waa xarifiinta maalin khaliyaata lagama qado waa walaalo labadna waa walaalo cashar buu garan waay cashar ma aha daade haddaba maxaad waxaanu isku haysanaa waxa weeyaan waxaanu isku haysanaa moobil ha usoo dhiibin carruurta dee maxaa kaa galaan u iibiyo moobilka way dadkii la hadlaya way ku dhegeysanayaan waa kaabade baliga bakti waa dayna kayda ordaadar ila dhaafaba kaxayso ordo intaan gelinaya moobilada saa doonta sug hooyo sug hooyo waxaan ku odhan lahaa anu carruurtaada la tali intaad u horseedaysa anaga wadna aragta xarifiintaan nahay imikana waxaan dhiganaa iskuullo 9 bilood bay ku dhashay aad nagama sheegayo waxaan ku odhan lahayn hooyo hooy carruurtaada u tali maxaa la yidhahdaa anaga hooyo aabana dhalay wayna soo direen si fiican baan iskuulka u imanaa inay degdegaysaa aan ku jawaabay iska daaya waa degdegaysaa waan malaynayaa tarbiyada hooyaday annaga iyadaana siisay soo faatid ma wixii tantaada maad ka hadlaysa mise hadda buuq baad wadi may saaxiibadu aniga anu adiga hadda waxbarashadaad ku eko orod waa oo mid ma ku sheegaa waxba moobilaan carruurtu ma socoto edo khayr qabto moobilaan baa isha ku yeeshay way kulama hadlayna tayda kale orod waa sii daaya waalidkii baaba noo soo raacay ardaygii waa yaab idinku imtixaankiina uu soo dhow yahay waxaan idinka rabaa inaad dadaashaan oo aad noqotaan xarfaanta iskuulka waayo waxaa dhalay odaygii xaafadda waxaa laga yaabaa inuu mar dhow inoo iman doono markaa soo dadaala insha allah saasaan isku ogni bismillahi raxmaan raxiim nin maalmahan iskuulkii qayliya waxbaa ka jiray baa laygu yidhi to inantayda meeda bal aan weydiiyo waxa ka jiray iskuulkii asalaamu calaykum calaykum asalaam niyo warnaabo adagtay wax dhacay
ما يا أبا ما حد على سكولك كور برضه سكولك كورنا iskuulka wallahi ma aaba wuu xun yahay ma garanaysaa هي Yaa, أنتوا waxaa حسين yimid- وحوم برتانو إنكم haa waanu baranaa Hay, laakiin iyo. waxaa jooga inan iyo inan walaalo ah hooyadoodu way la xun tahay moobil ba u iibisay houseband iyo waxaan loo joogin bay ka sheekeeyaan wallahi waanu yaabanahayba وأبا هوس بارد قاسنا ما حي waatan garan waayeyba weligayba ma maqal وموبيلو يبيسي haa way u iibisay ويسوق ميدي كتبي weliba kaaga sii darana waabay u soo raacaysaaba macalinkii ما حي تري ما كي أصور عادي ما حي كسي waxbay tiri baa inankayga iyo inantayda lamaba hadli kartidba way dhegeysanayaan ما معلنك بيقول لي هاي haa heesana galaaskii baa weli ku dhex dhegeysan وأبا تو قبضها ما قرنا يا waad garanaysaa waa gabadhii ceebla قبضي عيب لا haa الله أمتي نودويد haa وأبا كوا عرفت إني بأي وين وجاي ميدنا ما يصور عادي iyadiina way soo raacday ميله بك بوق wallahi تبى البريبان سكول كي haa تبى أنا وضيق حافظ أنا هاي haa تبى أبورت إذا كانوا حنين كوان ليا إن يان ساسو كلا نقولين insha allah وضع ركتان ده سين نقدين waan ognahay إن مركا إن الأورت سكول كي تجي بل أن صور سنة معلن كي واحد كتير سكول كي الأورت سكول كي هنا هاتو waayaa يا ها هلو ها fiican tahay khayre xaaladaha ka waran xaflad baa jirtaa wallaahi ma xaflad shidan baa bal waayo waan iman doonaa insha allah waraag هلو ها يورن معن سمنورست xaaladaada dee baryaan waan ku waayo waad iiman weyday bee geeri baa dhacday maahee dee wala waan kuu soo ducaynayaa inaan garab kula qabtay ahayde may meesaa la iskuma jecle waayaha anaa ku imana geeride mayaa qaadaya iminka waaya xabiibi dee bay bay waaya waaya anaa kula soo hadlay caawa waaya wartada carruurtaydi meeyin kii xumaa doqonkaanu tagnaa bay yidhi moobil ha u ibin oo maxay kula sheekaysan adduunka haddaa maayaane moobil ha u ibin bu maantaday atala carruurtaydi kaalaya hooyo kaalaya hooyo hee hooyo hooyo ma fiican tahay ma fiicantiin hooyo hooyo waxaan doonayaa hee caawa xaflad baa jirta ma garanaysaa haa waxaan doonayaa hooyo inaan caawa xafladdaa qabto haye dad markaa hooyo waxaan doonayaa waa xaflad shidan waa akhyaarta waa isku arkaysaa haa markaa hooyo waxaan doonayaa inaad tago wad fasaxdid waa caadi waa ku fasaxaya hooyo adna iska waran waan muruweysana oo maxaa ku helay inantaa ma sheegaysanay geer ku dhacday laa ilaa allah yarxam araaximiin hooye waan u ducaynaya tagi kari maayee waan iskaga tegaye dabala hadashun hooyo hooyaan u taga dambe aasko yaan ka qayb galo hooyo waa caadi waa la iskuulood ka qayb geliye dabala hadasho horta hooyo horta balan la hadlayso haa waa tani soo qaraacday haa waa la qaadayaa waayahay daana imika ku iman waxba waa hasdhibina hooyo hore hore u cararo inantaa joogiyo caaway tegayene hooyo tag tag hayo hooyo tag oo ilaaha ku daayey amare بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت والد كي سوقي طلع محي قوانا تانية مشكلة وين باهي ستبا dadkii caruurtoodii maawila u qaaday anagii bayna qabsanayaan in laleeyahy maawilada maa la soo iibisay معلم السلام عليكم calaykum asalaam معلم qaryadii ducaali سما فيعني waa khayr ii waran والله اسكت في عيه هي maxaad haysaa كون حالها waa la wanaagsan wallahi هي اسكول كي دي waxaan maqlay baryahan qayliye waxba ka jiranay ma xaraxay aniga mushkilada aad u weyn baan haysata haddaan naaniyo macallimiintii maamulka هي mushkiladaasina waxay tahay هي ardaydii waalidkii ma weyn usoo dhiibayaan moobil هي moobilkaasoo kharibin waad garanaysaa haddee gabadhaas niyo meel lagu sheegay in ciyaar iyo wax miyada gabadhaas taw war maxaad nagu oo kaalay inaad arkaaday maxaad igu yeertaydu inaga soo istaag balna horta waan taaganaya salaamu calaykum horta calaykum asalaam gabadha ayaa ma dhawi toolay iskuulka horta aniga carruur bay dhigtay kawdhi ayaa dhawi toolay waxaan maqlayay qayle iyo wax laga sheegay iskuulka oo yiri islaan yaro ciyaal moobil u iibisay iyo iskuulkii la moobiladii ku dhex isticmaala oo dad kula sheekaysto oo
waxaa sameeya oo telefoonku inuu yahay horta aalad fasahaadisa dhalaanka iyo jiilka cusub ee soo koraya miyaad inta haddaba si khalad aad u fahantay waxee kaale maa telefoonka oo show magaaladuba telefoonka carruurtaanu idiya ka sheekaysanaysa maaha telefoon waxay ka sheekaysanaysa magaaladu welibana odayaashii xaafadda kugula yaabeen dhaqan darrada carruurtaadu hogaaminaysa war dhaqan darrada anaa ugu dhaloo dee calashaan ku barbaarinaya idiga maxaani saaraysa maxaad igu yeedhatay waxaanu kugu yeernay ma ii dhegeyso waana yar baan ku siinaya anigu waanada adeerkaagama baahnid anu waanaba ma baahniba adeer waana waad u baahan tahay waana carruurtaa la waaniyaa lagu dhahda waxaayo soo karoosaba laakiin anu edo waxaan ku oran lahaa waxaan uma baahni dhegeyso caqli kugu filan baan kugu jirin waayo dhe wayga waxaba caqliga marka haddii waxaad waana u baahanaysaa marka waa caqli buuxa kugu jira ayadana waana u baahanayn laakiin adiga caqli buuxaan kugu jirin dhalaankaaga yaraayo soo koriyey ee jiilka cusub ee maanta kamid noqonayay madaxda ama ardayda dee somaliland ayaad mobil iyo wax ugu yeedhaysaa masaad leedahay hooyo iibsada hoo la hadla heblaayo la hadla mobilku ma waxba galaaska dhexdeedii buu leeyahay hallow naha ii waran su'aal ma ku weydiiyaa waxaas wax ma noqonayso su'aal ma ku weydiiyaa mobilku ma wuxuu leeyahay dhibaato waxbarashada way baranayaan way bartaano macalinku waa kaasoo ma oran waxbay garan waayeen laakiin mobil buu ku qabsaday mobilkaana u ibi casrigu la talaabsanaya 2013 dhegeysaad kan 2013 mu gaadhin age baa lagu qaataa bahalka mobilka qof weyn oo dan u qaato baa mobil qaataa sax uu ku ciyaalka hadaad u dhiibto uu fasahaadinaya age baa tiri hooy anaaba la habsaamay waan isla yaabanaayo inaan 5 jir ku dhiibahayd waan la habsaamay walaa ka waan la habsaamay waxaan ku yiri hadad waanada qaadan weydo adigu bay ku darantay waxaan midna ku sheegaydo inta soo korban koran la mobilka carinta iyo xalkaan wadii arkay dhibaatadayna haysatay oo ducaalow kawdhe bal waxaanu isku dayi doonaa sidii aanu ardaydan uga tirtiri lahayn mobilkan iyo khasaarihiisa uu leeyahay waqti waxaad arkaysaa dhalinyarada yaroo gidaarada la taagan mobil hadday doonaan waxun bay ku isticmaalayaan meesha marka kullay kuwaagana way soo socotaay bal kuwaagana aad uun uga adkow oo ka warhay anigu horta anigu ismihiin sidaa inantaa kawdhi anigu kuwayga anaa ka adag gud iyo qaar baan la dul taaganay kuwayga sax xabadna ma samaynayan mobilna ma qaadanayan waa loo baahan taana anaa kaa huba ee ka warwaran xaggayga dhibaatadan yarna waan iska xalin doonaa gabadhana maalin aan maanta ahayn bay garan kullay way garan doontaa marka la idhaahdo ilmahaaga qayrkaabuu ka hadhay waa sax markaa bal waynu isku dayi doonaa si aynu uga hortegi lahaan xaaji ducaale horta weynankii saaqidka ahaa aan saaxiibad ahayn صارت هريا بلورتا بختي waxaan baqtay inaad iska daa moobiladana quraan ku shubeynta heestaad ku shubaso inaad roon marqaano maxaad iga dhex beegnaa deena raga ay marka inaga daa waxaan dee haddaan marqaano ka war marqaan xageeba laga yaqaan dee marqaan oo jaas maana jaas may ilaahay ka baq hay iska daa heesaan hay quraan ku shubo hay waanada ma iga qaatay waan ka qaatay waa sax way soo duceyn ilaahay salaad ugu saaro insha Allah in kan quraan ku soo shubaya ku soo kana waan tuuraya ana walaashayna waaniya way niyo horta kuwan dumarka carruurtan way fasahaadinayeen fasahaad gabadh iigu horeysay aan arkayda carruur fasahaadinaysa waatan markaa niyahow talan siinayaa bal maanta kamaan kula ballanay bal talan siinayaa hadday talada qaadan weydo meesha ka dhici doonto iyadaa garanaysa war iska waran asalaamu calaykum wadiya dhaba laa maxaad iga yeedhay waan kuu yeedhay kowdhe ma mobilkii wada weli daba taagantay naamaya dhegeyso mobilkiiba wax kaway baa kuu wadaa maante dhegeyso waanaan kuu wadaa anigu waanadaan kuu wadaa waxaa weeye telefoon baad ciyaalka u iibisay sababtaad ugu iibisay eed ii sheegaysaa maanta waxay la talaabsanayaan 2013 qayrkood bay dhinac ka raacayaan hadday dhegeyso aan waana ku siiyay qayrkood bay raacayaan ma aha sheekadaada adiga sheekadaada waa fasahaadeen carruurteedii waan fasahaadiyey weeye kowdhe mobilkani waa aalad tiknolojiyad wadamada reer yurub ama reer galbeed baa soo sameeyey waa aalad wax kasta oo lagu subto ama wax kasta oo lagu dhegeysto sideeda oo safiix aad ugu dhegeysan karto ama aad u maqli karto waa aalad fasahaadisay dhalinyaradeenii iyo dadkii jiilkeeda yaraa ee cusbaa ee soo kordhayay ma kuwan baa ninka yanantaaduba waa kuwan dhegeysa haddaba
waanadeydu waxay tahay yaa cambaray waanadeydu waxay tahay carruurtaadaad dhashay ka daafa sahaadiska moobiladay sitaan haddaad hayska sitaan laba mid ka goo way ku sheekaystaan ka goo way heese ku dhegaystaanna ka goo carruurtaadu moobilka halka fiican halka xun iyo u qaadaan halka fiican ha u qaataan moobil bay qaateen waa inay u qaataan quraan inay ku shubtaan iyo axaadiistii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay ku shubtaan iyo qur-aanka ilaahay ina farayo inaynu ku dhaqanno markaa dhegeyso waanadeydu waa taa haddaad iga qaadanayso weeyi ducaalow horta way fiicantahay in la iswaaniyo maantana wax badan oo iga maqnaaba waad igu soo kordhisay aad iyo aad baad umahadsantay ducaalow maanta macallinkii baa inoo imanaya haye macallinkii maalinta hore waxun baa ku samaysan adiga iyo carruurtaaduba haa horta carruurtaadu horta asalaamu calaykum calaykum asalaam macallin salaamu calaykum isfahanyi iska warrama horta carruurtaada ma u sheegtay wax ma ka dhadhicisay iyagu saaxiga markay lagu sheegay hore adeer caadi ma tihiin ha way marka macallinkii aad maalintii hore macallinkii aad maalintii hore muxuu ahaa aflagaadayseen waa ka macallinkii raali geliya anu markayga hore waa raali baan ahay waxaasuu iska ilaaliya wasaxee raali anna macallin mid baa kuu sheegaya hooyadii dhashay baan ahay laakiin maalintii hore aduu qalad xun baa ama mowqif xun baan ku kala tagnay maantana waxaan u imi ama halkan ugu imi inaynu maxay dhahay inaan kaa raali geliyo ayaantii waxaan kugu yidhi marka waad raalihaan kartaa baan koranaya anu markayga hore raali baan ahaa haye carruurtana waa carruurtaydii oo kale waxbaan berayay soo waxaad garatay maaha markaas waxaan idinka rabaa inaad diinta ku xidhnaataan oo ilaahay hor istaagtaan moobiladani waxaan heesaan runtii faa'iido male waa caadi waa ka dhigayaa moobil dambe dhagahaagaasna waa la xisaabinayaa soo maad fahmin hadhow toban naar baa lagaaga shubayaaba la yidhi rasuulkeenu inoo sheegay dadka heesaa iyo waxaa dhegeysta marka ha la iska ilaaliyo caqabad weyn weeyaan midda kale laba qalbi ma lihi midna cashir ku diyaarimaysa midna heeso soo waxaad garatay maaha markaa laba mid unbaa ogaaysa amba inaad cashiradaadii barta kaga hadlo amba inaad raacdo mobil marka waxaan ku odhan lahaa casharadaada ha ka hadhina dadaala waxaana inoo ballanaya imtixaankiyo inagoo bartaas ku mid soo ducaan waay ma way fiicantahay hooyo moobil dambe aad qaadanaysaan ma jiro tiknolojiyadda boy la taabsanaysaa ma jiro waa inaynu sidaa waxbarashadiina waxbarashadiinaasun hooyo eegataa way waan ogaanay inay aqoontu tahay aqoon la-aan inay iftiin la-aan tahay haa hooyo moobilkuna inuu dhalaanka xumaynayo wax rajaynaa inaan imtixaanaadkayga haa hooyo ama odaygu ducaala iga dhaadhiciye waa kan ilaahay khayr iyo nabad ha siiye odaygu ducaala iga dhaadhiciye laakiin markii hore waxaan moodayay anigu inaanay dee moobilka waxaan ahayn lagu shaqayn karinba laakiin iminkaan ogaada inaan waxba hayne moobilka waa iska ilaaliyo taasi waa iga dartaa taladu iyadaa cilmi leh ciddii maqashaa wanaagsan codkoodu intuu korayo carruurteennu yay xumaaneen macna waad arkaysay riwaayadii ka hadlaysay moobilka ee adigu dhanka macan lahaan sidaad u arkaysay riwaayadaasi riwaayadda waxaan arkayay si lagu dhiirigelinayo ardayda moobilada isticmaasha iskuulada dhexdooda sababtoo ah technologyga moobiladu marna way wanaagsan tahay marna way xuntahay marka ardayda yaryarka ah ee dugsiyada dhigtaa ay fasalada la yimaadaan dhibaata ay leeyihin marka kale ee ilmada madrasada dhigtaa ay u isticmaalaan halka qur-aanka iyo xadiista rasuulkana aad bay wanaagsan yihin kee ayaa badan faa'iidada iyo khasaaraha uu dhalaanka ku leeyahay moobilka khasaarihiisa badan imaka halka iskuullada mid aleegno waayo ardaygii oo fasal ku jira ayaa ugu soo dhacaya moobilka heeso kow macalinka u ka saaraya markaa xiisadii laba ardaygii oon waxba baran oo isticmaalo moobilka oo yeesha dad saaxiib ama dad kale oo kula xidhiidho taafraad saddexaad mashquul ayuu gelinayaa xiisadaha u dhigan lahaaba saameyn ma ku leeyahay dhinaca waxbarashada iyo dhaqanka carruurta haa marmarka qaarkood haddii sida fiican u isticmaalaan dhaqan xumo kuma sameeyaan laakiin inta badan moobilada waxa ku jira waxyaabo ayna ardaydu ayna u fiicnayn waa kow anshaxa oo kale u ka hor yimaadaa xagga moobilada ardayda marka waxaan odhan lahaa anugu ardaydu hadday isticmaalayaan ku shubtaan wax diinta iyo dhaqanka u wanaagsan
iyo ma badan caruurta u isticmaasha dhanka saxda iyo dhanka aan saxda ahayn waxa badan kuwaan dhanka saxda ahna u isticmaalo kuwaan fiicnayn ayaa u badan aga inta badan sidee ay dhalaanka loogu wacdin karaa inay sida wanaagsan ugu shubtaan mobilka waxaa loogu dhiirigelin karaa riwaayadda imika oo kale oo laga qabto dugsiyada iyo wacyigelin waalidka loo sheego sababtoo waalidkiibaa wuxuu odhanayaa anaa usoo iibiyey anay u dhacdayba ardaydan mobil ka qaaday waalidkii anaa usoo iibiyey maxaad ugu qaadsan markaa horta waalidka waa in la wacyigeliyaa xagga waalidiinta oo riwaayada loo sameeyaa ma jiraan caruur jecel ama isku dayi karta inay teknolojiyad cusub kusoo sokordhiyaan waa laga yaabaa inay jiraan gabagabadii waa maxay talada aad usoo jeedinayso dhalaanka yareer ee isticmaala mobilka inay mobilada iska daayaan intii dugsiga lagu jiro haddii uu guri ku haystana inuu u isticmaalo sifaha ugu wanaagsan ee inuu diinta halka diinta ku xidhnaado daawadaylintaa waxaa dhowgay barnaamijkeenu maanta kaga hadlaynay saameynta uu mobilku ku leeyahay caruurta ama ardayda daawadaylintaa waxaa noogu eeg barnaamijkeeni waxaad si toos uga daawanayseen telefishinka caalamiga ee University Festividiisa ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan la socodsiin aniga Axlaam Maxamed Ibraahin Axlaam degan waxa editinka iyo kamarada iga caawiyay Najiib Cabdeeli dhamaantay waxaan iga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh